Asalaamu calaykum saaxiibayaal, kusoo dhowaada barnaamijkeena dabagalka wararka. Daawada hadday tahay markii ugu horreeyay, fadlan kanaalkeena subscribe noo saar si aad ula socoto wararka warkan ku xiga. Mahadsanid. Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Dowladda Federaalka Soomaaliya oo maanta la ansixiyay ayaa la kulmay cadaadis badan oo kaga imaanaya saaxiibadiisa hore iyo saaxiibo ka ag dhow madaxweynaha xilka haya Xasan Sheekh Maxamuud. Ra'iisul Wasaaraha ayaa aad loogu cadaadinayaa soo xulashadii golaha wasiirada. Ra'iisul Wasaaraha ayaa hadda la soo sheegayaa inuu ka dansaday taleefanka asxaab badan. Ra'iisul Wasaaraha ayaana sameyn wax ballanqaad ah. Ra'iisul Wasaaraha oo habeen hore casho kula hadlay qaar ka mid ah asxaabtiisa ayaa sheegay inay xilalku kooban yihiin, mas'uuliyadna ay ka saaran tahay kala qaybsiga habqabiilka Soomaaliyeed ee 4.5, halkaasuu ra'iisul wasaaruhu ku cadeeyay inuusan qofna u ballanqaadi karin xil. Warar aan helayno ayaa ka mid ah in saaxiibada ku dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kale ah Cabdiraxmaan Odawaa, Xildhibaan Fiqi iyo Abshir Bukhaari ay ku cadaadinayaan ra'iisul wasaaraha cusub inuu midkiiba siiyo wasiiro darajada A ama B. Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa arrintan ku sheegay inay tahay arrin adag, taas oo sababtay maanta markii la ansixiyay inuuba taleefanka ka dansado. Ilaalinta hantidhawrka qaranka dowladda Soomaaliya ayaa u yeertay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Bayle. Ilaalinta ayaa ku soo eedeysay wasiirka musuqmaasuq maaliyadeed. Wasiirka ayaa si degdeg loogu yeeray inuu soo xaadiro kulan lagu baarayo hanti ka maqan bangiga dhexe ee dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiir Bayle ayaa haraagii ka soo haray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Asbuucyadii ugu dambeysay waxaa socday isbeegsiga siyaasiyiintii hore ee mucaaradka ah oo haatan xilka haya iyo haraagii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ceeb weyn uga timi dhankaas iyo xujaydii Soomaaliyeed ee sanadkan loo qaaday xajka. Xujayda ayaa laga qaaday lacagtii ugu badneed abid ee xajka lagu aado, taasoo u dhiganta lacag $5,300 xaaji kasta. Lacagta $5,300 ayaa ku jirta soo dhaweynta xujaajta, qaabilida ka soo qaadida ayraboorka iyo fududeynta safarada dhanka xajka ah. Dowladda Soomaaliya ayaanan waxba u fududeyn oo kadib markii xujaydu ay ka degteen dhankaas iyo xaramka ayaanan ayraboorka cidna ugu imaan. Ilaa 2 habeennimo ayay sugeen gaadiidka basaska ah, halkaasoosan cidna ugu soo xaadirin oo ka soo qaada ayraboorka. Xujaydii ayaa ku khasbanaatay inay seexdaan ayraboorka. Tan ayay qayladhaan badan ka bixiyeen shacabka Soomaaliyeed oo ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay dayacday xujaydii. Xujayda ayaa arrintan la noqotay la yaab kadib markii lacagtii ugu badneed ee abid ay xajka ku aadan laga qaaday, haddana lagu dayacay ayraboorka ay dhulka seexseexdeen. Sawirada laga soo qaaday ayaa ah kuwa argagax ku ah shacabka Soomaaliyeed oo arrinta loogu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya inay jawaab degdeg ah ka bixiso una celiso lacagaha qaar laga qaaday shacabkaas maadaama ay dhulka seexdeen. Markii dambena ayagu isdabareen ee kireysteen gawaarida ka baxaysay ayraboorka subaxnimadii. Dhageystayaal, waa naga intaas wixii warar aad nooga barateen. Fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar. Mahadsanid.